السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan asxaabteeda waan idin salaamay oo walaalkiina muhajey janalka aad daawanaysidna waa king j films. aad baan idin salaamayaa. caawa waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago qiso aa wada garanaysaan laakiin qaarkiin aan ogeyn micnaheeda, waqtigay dhacday iyo wadankay ku dhacdaba. kulley qisaas wax kale ma ahan sida dadka kusoo aragteen. waa qays iyo leyla, waa labadii jacaylka xad-dhaafka dhex maray. marka saaxiibayaal, caawa waxaan isku dayayaa inaan bartiwan aan idinla wadaago. dhegaysi wacan. leyla iyo qays waa sheeko jacayl ah oo ka mid ah sheekooyinka ugu caansan bariga dhexe. sheekadan waxay taariikhdeedu u noqonaysaa ilaa qarnigii 7aad. leyla iyo qays waa sheeko sida oo kale ku faaftay waqooyiga Afrika iyo Indiya. haddaba leyla iyo qays maxay ahaayeen? sheekadoodu sidaysay u dhacday? nin la odhan jiray majnuun, ninkii waalnaa oo magaciisa caadiga ahaa qays, ayaa leyla kula kulmay si kedis ah meel ay dumar xaflad ku lahaayeen. dabadeed wuxuu bilaabay inuu geeliisii gowraco munaasabadda haweenka awgeed. haweenkaa waxaa ku jirtay leyla. leyla waxay jacayl u qaaday qays, isna midkii la mid ah ayuu u qaaday. si dhaqsi ah ayaa qays u doonay leyla inuu u geed fadhiisto oo uu weydiisto aabbaheed, balse nasiib daro leyla aabbaheed horey ayuu nin kale ugu ballan qaaday inuu inantiisa siinayo. balse qays arrintaasi waa uu cuntami weyday, wuxuuna ku adkaystay in leyla la siiyo, halka leyla aabbaheedna ku adkaystay in inantiisa uu nin kale ugu ballan qaaday. qays wuxuu noqday nin jacayl qaaday, laakiin inantii uu u qaaday ku hunguubay. qays oo jacaylka leyla uu ku dheeraa ayaa ka samri waayey. dabadeed wuxuu bilaabay inuu dugaaga weheshado oo uu duurjoogta u tago. qays aabbihii ayaa isku dayay inuu ilowsiiyo inankiisa jacaylkan haleelay, balse qays xanuunkiisa waa ka sii daray oo wuxuu noqday nin waalan oo xiskiisii ayaa raacay. saaxiibayaal, kani waa barti 1. insha allah hadduu ilaahay idmo waxaan soo gelin doonaa barti 2. haddii aad ka hesheen muuqaalkan ama qisadan quruxda badan, fadlan waa inoo muhiim inaad noo like garaysid videogan, commentina aad nagala wadaagtid qaybta hoose wixii fikirkaaga ku aadan. fadlan janalka haddaad ku cusub tahay subscribe noo saar, annagana waxay noo tahay dhiiragelin. aad baan idinkaga mahadcelinayaa dhegaysiga wacan ilaa iyo dhammaadka aad dhegaysateen. waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.